العاشر sida aad ayaad u mahadsan tahay sida aad iiga naxdad iiga xanuunsatay sida aad iiga xanuunsatay qaar Allah ku siiyo ajir xasanaad tiro badan Faadumo Cabdi Xasan oo ah hooyo dhashay 14 caruur ah shan kamid ah waa ay ka dhinteen hadda waxa u nool 9 caruur ah kuwaas oo ay u xoogsan jirtay inta uusan xanuunka ka haleelin qoorta hooyadan waxa ay ku nooshahay xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne waxay xilligan la daaladhacaysaa buro kaga taalo qoorta oo waxa ay sheegtay in xanuunkan uu ku sii siyaadayo maalinba maalinta ka dambaysa hooyadan ayaa dhawaan waxa hoygeeda ku booqday Samafale Cabdicasiis Muudey iyadoona sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay hooyadan lagu baahiyay baraha bulshada si ay caawinaad uga hesho walaalaha Soomaaliyeed balse maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore oo waxa codsigeedii ugu horeeyay ka soo jawaabay Caasho Khaliif Xaaji Maxamed oo madax ka ah wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamul goboleedka Hirshabelle iyadoona Samafale Cabdicasiis Muudey u soo wakiilatay deeq lacageed taasi oo ay ugu talagashay in lagu maareeyo xaaladda qoyska Faadumo Cabdi Xasan ayaa u mahad celisay Caasho Khaliif Xaaji Maxamed oo madax ka ah wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamul goboleedka Hirshabelle أنا إمام الصوماليات هاي dhashay 14 caruur ah shan kamid ka saqiirtay sagaal kamidna u joogto Caasho sida aad ayaad u mahadsan tahay sida aad iiga naxdad iiga xanuunsatay waxa ay soo dhibtay Cabdicasiis waa soo gaarsiiyay $500 waana mahadsan tahay sida aad iiga xanuunsatay qaar Allah ku siiyo ajir xasanaad tiro badan nolosha maanta iyo sidii hore ka waran balada wax badan ayay nolosheeda ka bedeli doontaa lacagtaana soo gaartay waxaan u baahanahay gargaaro taqaatiir iyo nolosha maanta aan ku jiro u joodin alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay mahad iskale ugu dambeyn Samafale Cabdicasiis Muudey oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa u mahad celiyay Caasho Khaliif Xaaji isagoona sheegay in hooyadan ay u baahan tahay qaliin lagu sameeyo buro kaga taalo qoorta maanta waxaan joognaa xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ku nooshahay Faadumo Cabdi Xasan oo ah maamo Soomaaliyeed oo halkan ku xanuunsanaysay muddo 6 sano ah maama Faadumo waxaan baahinay muddo laga joogo 2 maalmood ka hor ayaan u baahinay bulshada Soomaaliyeed durba waxaa ka soo jawaabay baaqaas wasaaradda xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle wasiirada Caasho ayaa ka soo jawaabtay durba lacag gaaraysay $500 ayaan maanta halkan ugu keenay Faadumo Cabdi Xasan oo ah maamo Soomaaliyeed oo ku xanuunsanayso magaalada Beledweyne muddadaas 6 sano ah oo aan helin wax daryeel ah iyo wax caafimaad ah aan helin wasiirada Caasho ayaa ka soo jawaabtay baaqii ugu horeeyay ee soo gaarsiisay maamo Faadumo soo gaarsiisay Caasho iyo waan u mahad celinayaa sida wacan ay ugu qayb qaadatay gurmadka loo sameeyay oo kala go'an lahayn Faadumo wali waxay rabtaa caafimaad bay rabtaa in loo gargaaro ay rabtaa lacagtii uu dhakhtarka sheegay $100 bay ahayd hadda waxaan haynaa $500 walaalaha kale waxaan ka codsanayaa in Faadumo wali loo soo gurmado oo caafimaad ay hesho oo qaliin ilaahay qaliinkaas ku guuleeyo maanta xanuunka haayo ilaahay oo ka dulqaado ay rabtaa wasiir Caasho way maasan tahay ku doyasho ay mudan tahay 100% walaalaha kale waxaan leeyahay wasiir Caasho qodayda way ka qayb qaadatay way aadeen ugu murgootay xanuunka haayo maama Faadumo walaalaha kale waxaan ka codsan lahaa Soomaaliyeed ama kuwa jooga magaalada Beledweyne iyo kuwa daafaha jooga daawad doono inay maamadan u soo gurmadaan u baahan tahay caawinaada oo qoys dayar ka soo jeedo awal xoogeeda ku shaqeysan jirtay haddana xanuunka ayaa la soo deysay waa dareemi kartiin lacag $100 ayuu yiri dhakhtarkii qaliinka ku sameey lahaay marka waxaan rajayn doonaa inaad ka soo jawaabi doontiin walaalaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida jooga